السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaaga sida aad WhatsApp-kaaga mobilka ugu jira aad ugu xiran lahayd computer-kaaga ama desktop-kaaga oo aad ka maamulan lahayd casharadaada ama document-yada kugu jira oo lagu soo diray. Marka koowaad waxaad tagaysaa WhatsApp application-kaaga, sida caadigeeda waxaad ka saaraysaa password-kaaga ama fingerprint-kaaga. Waxa ku soo baxay chat-kaaga, waxaad raadinaysaa saddexda dot oo kor ku qoran, waxaad ka sii dooranaysaa linked device meesha ku qoran tahay number 3. kadib waa sii hubinaysaa linked baa sii leedahay, waxaana ka sii saaraysaa password-kaaga soo xaqiijin ahaan. kadib waxaad u oggolaanaysaa mobilkaaga inuu qaado kamarada. halkaas waxaa ku dhan mobilka, waxaad aadaysaa computer-kaagii, waxaad soo kicinaysaa browser-ka. kadib waxaad ku qoraysaa waxa la yiraahdo WhatsApp web search baa leedahay, baad u diraysaa Google-ha, wuxuu kuu soo qabanayaa WhatsApp web. website-ka ugu horeeya waad ku dhufanaysaa, waad yara sugaysaa iyadoo ay ku xiran tahay hadba speed-ka internet-kaaga. kadib markuu ku soo kaco waxaa ku soo baxaya koodkii oo shirkadda WhatsApp-ka ay leedahay. kamaradaadii kugu daarneed baad ku aadinaysaa meeshaan madow oo koodka ah. markaad ku aadiso waa yara sugaysaa, kadib wuxuu ku leeyahay waxaan soo load gareynayaa chatskaagii ama wada sheekaysigii baan soo load gareynayaa. wax yara sug, waqti yara sii ha degdegin. halkan waxaad ku aragtaa chatskaagii ama wada sheekaysigii. halkaasaad waxaad ka baranaysaa qofkii kuu soo diray documentigaaga, markaas baad ama akhrisanaysaa ama aad ku save gareysanaysaa computer-kaagii. kadib markaad dantaada ka dhamaystid waxaad ku laabanaysaa calaamada 3 dot ah, waxaa leedahay log out. waana hubinaysaa inaad ka baxday, because mararka qaarkood waxaa dhacda inaad ka bixin ood computer-ka uga tagtid. waad hubinaysaa